sodhawada kheyray waxaan ka hadli doonaa maanta xaaladii ugu dambeeyay dowlad deegaanka Soomaalida iyo diyaar garowga dagaal halkaas ka jiro. Waxaan kala soo qaadan doonaa jabhadda ONLF oo waan jabtay Abiy Ahmed sheegtayna nabadda uu sheegay in sanad ka imaan laakiin dad u soo halgameen sidaa daraadeed aan la xusin nabadii dadkii u soo halgamay waxay keenaysaa in dib loo soo laba kaclayo jabhaddii dib u soo noolaato. Waxaan kala soo qaadan doonaa Somaliland oo lagu eedeeyay inay markaasi maalgeliso ururka Al-Shabaab iyo Daesh maadaama ay markaasi 6 askari oo ku dhaawacmay buuraha galgala ay ku daaweynayso isbitaalka Manhal ee magaalada Ceerigaabo taasoo ayadana markaasi caad markaasi dadku ay hadalhayaan arrimahaasna waan falqayn doonaa. waxaa kaloo ka hadli doonaa taliyaha sirdoonka Bacluul ninka la yiraahdo ee Somaliland oo asagoo afkiisa ka sheegay in 200 oo askari oo jihadoona ay maamul berber ka bixi jireen ayna aadi jireen buuraha markaasi galgala halkaas oo dareemi karto in wada shaqeyn weyn ay ka dhaxaysay Somaliland iyo kooxaha markaasi ka dagaalamay buurahaas. ama sidii barnaamij shirkada meel fog gaarsiye waxaan ka hormaraynaa deegaanadii dagaalada ka dhaceen Dacwaale iyo Xarshin ee deegaanadaasi ciidamada liyu booliska ayaa saakay ee la wareegay amnigeeda ciidamo aad u far badan ayaana lagu wareejiyay deegaanadaasi si ay gacanta uga dhigaan amnigan u sugan. waxay maqleen liyu booliska in ciidamo far badan ay ku soo wajahan yihiin oo dagaal doon ah oo markaasi ka socday dhanka ay beesha Arab oo isku fidinaya deegaano kale oo cusub sidaa daraadeed waxay bilaabeen ciidamada liyu booliska inay difaacyo galaan rondooyinna ay sameeyaan magaalooyinkaas isku xiran waxaana markaasi dareemaysaa in aagaasiba in ciidamo ay noqoto oo deegaanada Yoocaale iyo Xarshin intuu dhaxaysay iyo Dacwaale iyo aagaas oo dhan ilaa xuduudka Somaliland ciidamo isku fidiyay laakiin ciidamo kale Somaliland ayaa la sheegay inay gudaha ku jiraan waqti kastana dagaal ay ku qaadi karaan ciidamada liyu booliska hanjabaadii maalmihiisa la soo dhaafay kasoo daba dhacayeen weli way taagayeen marka xiisada ee dowlad deegaanka iyo Dacwaale aageeda weli way taagan tahay lagumana kala bixin. liyu boolisna waxay sheegeen inay muddo kooban kusoo afjari doonaan jabhaddii Carabna waxaa la sheegay inay gudaha usoo gasho Somaliland isla markaana ay doonayso inay dagaal weyn halkaas ka dhigto ayagoo sheegay inay aargudsi u socdaan kana aarsan doonaan dadkooda shacabka ahaa dhibaatada loo geystay. dhan kale haddaan aadno isbitaalka Manhal ee magaalada Ceerigaabo waxaa la sheegay in lagu daweynayo 6 askari oo kuwii ka dagaalamaya Daesh ka dagaalamaya buuraha galgala in la geeyo halkaasi sidaa daraadeedna horeyna Cabdiweli Gaas ayaa u sheegay oo yiri halkaasi waxaa lagu daweeyaa dhaawacyada waana sheeg meel muhiim ah oo shabaab iyo Daesh baa lagu taageeraa. marka Somaliland waxyaabihii faraha badan lagu eedan jiray waxyaabo fara badan ayaa soo taraya haddana waxaa la sheegay Boosaaso buuraha galgala 6daas nin oo dhaawac ah in la geeyo meesha la yiraahdo Ceerigaabo isbitaalka Manhalna lagu daweynayo qaarkood ajaanib yihiin arrintaasna Somaliland ka shaqeynayso. marka waxyaabo fara badan oo Somaliland lagu eedanayo ayaa marba marka dambeeyso iska soo daba dhacayo. waxaa kaloo jirto in taliyaha sirdoonka Bacluul ninka la yiraahdo inuu sheegay in 200 oo askari maalin walba ay ka bixi jirta ama 200 oo jihadoona inay ka bixi jireen magaalada Berbera ayna aadi jireen buuraha galgala sidaa daraadeed wuxuu sheegay in halkaasi ay jirtay in arrintaasna uu la socday inkastoo isaga hore uusan u sheegin in meeshaasi buuraha galgala marka hore la sheegay inay ku jiraan 800 ama 1000 askari haddana dowladaha Mareykanka iyo Faransiiska ay sheegeen inay 4000 ciidamo ka badan halkaasi ku jiraan. sidaa waxaad dareemi kartaa in xaalad halis ah ee Puntland ay ku wajahday midda kale dowladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeeyeen Puntland inay ku hagratay dagaalka ka socda buurahaasi ayna doonayso inay ka caawiso halkii ay ka caawilad ama saanid military iyo wax walba ay ku siin lahayd inay hadda ku hagratay kaga aamusay sidaasna aysan macquul ahayn. marka waxaad dareemi kartaa inkastoo duqeyn cirka ah loo geystay kooxyaalkaas ku sugnaa ee dagaalka Puntland ayada ciidamo fara badan soo bandhigtay marka saanid military oo dheeraad ah ay doonaysaa inay dowladda Soomaaliya ka hesho inkastoo dowladda ilaa hadda waxba ay ka helin. arki doonaa wixii kasoo kor halkaas diyaar garowgaasi dagaal ee Puntland ay wado oo hadda ay leedahay maalmaha soo socdo aan ku qaadi doonaa aan kusoo gabagabeynaynaa iyo xaaladda halkaasi ka jirto oo la sheegay Somaliland ay garab buuxa u tahay kooxaha Al-Shabaab iyo nimanka la yiraahdo Daesh ayadan halkaan ayaan kusoo gudbi doonaa marwalba xogtaasna waa xog muddooyinkii ugu dambeeyay ee aad u soo bixaysay oo dad fara badan ay lahayn war maxaa jiro sidee Somaliland ku caawinaysaa nimankan maxay ka helaysaa in dad Soomaaliyeed la dhibaateeyo culayskaasna lagu hayo ayaguna ay nabad yihiin hadda nabadii ay haysteen ma haystaan Somaliland oo ayaga naftkooda culayskii uu saameeyay. Somaliland waxay tiraa god tirada qodin hadaa qodana dheereen inay ku dhacaysid waa lama ogeey mar haddii ay markaas lagu eeday iska soo daba noqdeen haddana wixii waxyaabo kamid ay soo baxayaan hadda dowlad deegaanka dagaal ka socdo Somaliland waxay ku eedeysay in gabi ahaanba Somaliland lagu eeday in gabi ahaanba nimankaasi wataan ama inay markaas ku jiraan kuwii Al-Shabaabka ka barbar dagaalamayaan beesha Carab taasna waxa way shaki kala waay tanna in Manhal lagu daweynayo dhaawacyada shaki kala waay. marka arki doonaa wixii kasoo kordho. dhan kale jabhadda ONLF ayaa sheegtay in nabadda Abiy Ahmed oo kaga sheekeynaya dowlad deegaanka Soomaalida inaysan ahayn mid iska timiday laakiin dad ay u soo halgameen sidaa daraadeed waxay sheegeen dadkii u soo halgamay inaan la xusin oo markaasi nabadda afka laga sheego wax micnaa ma sameynayso waxaa loo baahan yahay in laga fikiro ama la xuso
dadkii halkaasi nabadda keenay ee naftooda usoo huray ee dhibaato iyo halgan badan usoo maray in markaasi la xuso ama la ilaaway oo aan la ilaawin oo hadda dib markaasi intaysan isku abaabulin ama aysan dib usoo laba kacleen jabhadda waxaa loo baahan yahay in arrintaasi laga baraadego. jabhadda ONLF aad uguma qanacsan Abiy Ahmed dhaqankiisa iyo qaabka uu maamulay maadaama muddo ay markaasi ay sii kala fogaanayeen 6 sano ka hor ayaad markay heshiis la galay oo hubka ay dhigaan haddana waxaad dareemaysaa in marnaba aan taageero buuxda ayna ka haysanin dhanka Abiy Ahmed oo jabhadda ay markaasi iska aamusan tahay meel wax ka bilowdana ay garlaadahay maadaama Abiy Ahmed oo qiyaameeyay in ballamihii lala galayna aan la oofin inta badan Abiy Ahmed waxaa lagu yaqaan in ballanka baxyo badan sameeyo oo qiyaameeyo jabhadaha oo heshiiska la galo sida Tigreega iyo ONLF iyo jabhado kale gudaha ka dagaalama ay heshiis badan la galay dhammaantoodna heshiisyadii wuxuu ka fuliyay ma jirto sidaa daraaddeed waxay sheegeen inay dhici karto markasta inay jabhadda soo noolaato markaasi cagta u saarto Abiy Ahmed iyo maamulkiisa maadaama uu mar walba iska indhatirayo meesha loo baahan yahay inaan la iska indhatirin. Cagjar ayaa kusoo dhaweeyay magaalada Goday iyo Jigjiga isagoo markaasi meelo badan geeyay waxaana wararku sheegayaan in qaabka wax uu meesha u booqday inaysan ahayn qaab qurux badan oo ay ku qanceen dadka Soomaalida laakiin uu iska tagay deegaanka wax micno weyn oo mashaariic ah oo halkaas ka fuliyeen aysan jirin laakiin uu sheegeen inay shidaalka iyo hantida ay haystaan in Afrika oo dhan ay ku filan tahay sida daraaddeed horena waa loo sheegay in gabahanba halkaasi uu u doonayo Abiy Ahmed inuu shidaalkaasi waxaas meelo ka sahmiyo oo yeesho si hadhow dhaqaale fara badan uga helo oromaduna ay markaasi xiriir badan u sameeyaan. qof ayaa soo sheegay commentiga igu soo bixiyay Jigjiga lagama wareejinayo caasimadda Abiy Ahmedna meeshaas kuma wato jigjigo caasimadda in laga wareejinayo muddooyinka lasoo dhaafo dhan ay socotay laakiin waxaa ku far adeegaya dadka dowlad deegaanka iyo Cagjar ayaa aad ugu far adeegayo oo dhahaya war meeshan lagama wareejin karo caasimadda laakiin Abiy Ahmed iyo Oromo waxay rabaan in Jigjiga laga wareejiyo caasimadda si ay Oromo u liqdo arrintaasna waa arrin jirto daadada hadda xogtaynin annaga hayne naga dhageyso ana maasantii barnaamij share garay meel fog gaarsiiyo inta barnaamijkan kulmi doono fi amaan illah.